ururka jaamacadda carabta ayaa si adag u cambaariyay booqashadii uu shalay ku tagay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar. qoraal ka soo baxay xogayaha guud ee jaamacadda carabta Ahmed Abul Qaid ayaa waxa uu si adag u cambaariyay booqashadii shalay 6 bishan January uu ku tagay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil magaalada Hargeysa. ururka jaamacadda carabta ayaa ku tilmaamay booqashadaasi inay tahay mid fashilantay oo lagu doonayo in lagu meel mariyo talaabo Israa'iil ay doonayso inay ku aqoonsato maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliya. Abu Qaid xogayaha guud ururka jaamacadda carabta ayaa waxa uu ku celiyay mowqifkiisa ku aadan jaamacadda carabta iyo sida ururka jaamacadda carabta uu markasta uga soo horjeedo in la kala qaybiyo dhulka Soomaaliyeed iyo sidoo kale aqoonsigaasi Israa'iil ay siisay maamulka Somaliland. isagoona sheegay in labadaasi Israa'iil ay qaaday ay si cad kaga hor imaanayso xayndaabka madax banaanida dawladda federaalka Soomaaliya, isagoona xusay in talabooyinkaasi ay si cad u jabinayaan midnimada iyo sidoo kale madax banaanida Soomaaliya, isla markaana khatar ku yihiin nabadda iyo sidoo kale amniga gobolka. waxa uu intaas ku daray in ay jiraan walaac ku saabsan isku dayo lagu fududeynayo qorshooyin lagu barakicinayo dadka shacabka ee reer Falastiin kuwaas oo dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan maamulka Yahuuda, iyo sidoo kale in degadaha Soomaaliya la doonayo in loo adeegsado dhisidda saldhigyo military. waxayna sheegeen in Soomaaliya iminka marxaladda ay ku jirta markii loo fiiriyo inaysan ka bixin karin in loo saaro dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira bariga dhexe, isagoona mar kale adkeeyay in ururka jaamacadda carabta uu si buuxda u garab taagan yahay madax banaanida iyo dawladda federaalka Soomaaliya.